wasiirka wasaaradda ganacsiga ee warshadaha ee dalka Mr Peter Muya ayaa waxa uu sheegay in muddo 2 asbuuc gudahooda turxaan bixin lagu sameynayo dhammaan saraakiisha waaxda dawladda dhexe u qaabilsan xaqiijinta tayada badeecooyinka ee Kibis. Talaabadan ayuu ku tilmaamay in ay qayb ka tahay dadaalka ay dawladda ugu jirto sidii dadweynaha looga badbaadin lahaa in ay saameyn ku yeeshaan waxyaabaha caafimaadkooda halista gelin kara oo dalka dibadiisa laga keeno. wasiirka ayaa intaasi ku daray in dib u habeyn lagu sameynayo waaxda Kibis sidoo kalena la shaqaaleysiinayo howlwadeen cusub. waxa wasiirku wacad ku maray inuu san sii shaqeyn doonin sarkaal kasta oo lagu cadeeyo inuu fududeeyo in wadanka la soo geliyo badeeco kontrabaan ah. Peter Muya ayaa waxa uu sheegay in waaxda qaabilsan xaqiijinta tayada badeecooyinka ee Kibis iyo maamulka qaran ee maareynta deegaanka ee NEMA ay burburin doonaan dhammaan waxyaabaha aan lahayn tayadii habooneed ee loogu talagalay. wasiirka wasaaradda ganacsiga ee dalka ayaa sheegay in dawladdu ay gacanta ku dhigtay 397,000 oo ah jawaano ay ku jiraan sonkor 484 konteenar oo saliid ah iyo sidoo kale 361 konteenar oo bacrimin ama waxyaabaha wax lagu bacrimiyay ay ku jiraan kuwaasi oo aan buuxin heerkii tayada wanaagsanaa ee looga baahnaa.